Haddii aad tahay gabar aroos ah ama gabar dhawaan aroos gali rabto oo aad rabtid jirkaaga inaad dhaqdid, alaabtan ka faa'iideyso. Alaabtan waa alaabtii gabdhaha arooska iyo jirka ku dhaqaayeen oo dhalada ka dhigaysay. Sidoo kale haddii aad marwo la qaba tahay, alaabtan ka faa'iideyso oo korka ku dhaqo. Alaabtan korka ayay dhala ka dhigaysaa wayna cadaynaysaa. Waana alaab natural ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن نجح كجين أم بيوتي سو دوادا والله هيجا ميل بوجوكتين دمانتي سو دوادا وولاش إنه هدا إني 11 قلو عصب أيامات والله هيجا إنه وضع و10 إن بدن اللي جسوا جاي أو إن بدن اللي يسوي دي ما شاء الله وأصحاب يجسوا عصتي مرك إن شاء الله 10 كنا ما أنتوا حكوا سابسين يا هاي قبلها أروس كأسيد أي تركود ورقن لهاين أيجو نسالون آدين أو جروجو جوجو مرك 10 كاس أيامات إني سدا وحنينه وضع لبضان شيء ومش نوتالو وأنا لبضي شيء وما شاء الله تبارك الله وجرك لو دقاي oo jirkana ka dhigaysa cadaan qurux dhalaal jileec marka alaabtaas ayaa maanta sameysanaynaa insha Allah waana alaabtii gabdhaha arooska ee jirka ku dhaqan lahaayeen ayagoona saaluun tagin oo gurigooda joogo marka ka faa'iideysta insha Allah kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabaha aan ka sameeyay sidaan u sameeyay walaalahayga soo dhawaada dhamaantiin meel walba bismillaah step 1 keeni scrubkii jirka ay ku dhaqanayeen gabdhaha arooska ayaa sameysanaynaa walaalahayga marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo aan ku qasano alaabteena sidoo kale marka hore waxaan ku shubanay hal galaas haafkiis oo sonkor ayaan ku shubanay waa sonkorteena caadiga ahayd walaalahayga nooca cadka iyo nooca brownka midii ku taalo isticmaal insha Allah waa hal galaas haafkiis oo sonkor galaas haaf oo sonkor waaye ina isfaanay ayaa rajeynaya insha Allah intaasna waa ka badsan kartaa adiga ayay kugu xiran tahay scrubka qiyaasta aad rabtid marka hal galaas haafkeed oo sonkor ayaa weelka noogu jirta haatan sidoo kale waxaan ku darsanay 2 xabo liin dhanaan oo aan soo miiray ayaan ku darsanay walaalahayga liin dhanaanta qolofkiina ma tuurin waa hoolay hadhowta ayaan dib ka isticmaalaynaa insha Allah qolofka liin dhanaanta iska tuurinina sidoo kale waxaan ku darsanaynaa coconut oil-kan ayaan ku darsanaynaa saliid qumbaha midda caaga midda oo ku jirto daasada midda ku taala isticmaal insha Allah waxaan ku shubanay xoogaa saliida ayaan ku shubanay walaalahayga oo qiyaas oo asdhaay intaan way ku filan tahay sidoo kale waxaan ku darsanaynaa qaando iyo haaf malab ah waa hal qaando iyo haaf malab ah ayaan ku darsanaynaa walaalahayga malabkana jirka ma sha Allah ayuu ka dhigaa wuu qurxiyaa jileecna wuu ka dhigaa jirka ma sha Allah kalar qurux badan wuu u yeelaa marka intaan ayaan isku qasaynaa walaalahayga oo si fiican isku dhexgelinaynaa waa ina alaabtan si fiican iskugu labtaa scrubkan waxa waa scrub uu dhaafay ma sha Allah jirka wuxuu ka dhigaa dhalo qurux hadana wuu jilciyaa jirka wuxuu ka dhigayaa softy dhalaalayo oo aad u qurux badan wasaqdana uu ka dhameynaya walaalahayga wuuna cadeynaya marka intaan ayaan si fiican isku qasaynaa oo si fiican isku dhexgelinayna asxaabay alaabtan ka faa'iideyso hadii aad tahay gabar aroos ama hadii aad tahay marwo waa alaab aad iyo aad u cajiib oo scrub jirka dhan u fiican ma sha Allah markii aan soo qasay scrubkeena hadda sidaas ayuu noogu soo baxay lagama sheekeyn karo sidaas uu noogu soo baxay sidaas ayuuna diyaar noogu yahay walaalahayga haatan waxaan ku shubanaynaa caag yar ayaan ku shubanaynaa alaabtan waa inaan ku shubata caag yar oo isku daboola oo dabool yar leh caagan ayaa marka ku shubanaynaa ama dhala yar wixii aad heli kartid muhiimadu waa inaa weel yar oo isku daboola ah heshaa marka alaabteena weelkan yar ayaan ku shubanay walaalahayga oo ujeedin sidaas ayayna noogu soo baxday step 1 keeni hadda sidaas ayuu diyaar noogu yahay daboolkeena saaranayna qaybteeni labaad ayaa sameysanaynaa scrubka walaalahayga tuugani ayaan sameysanaynaa walaalahayga marka hore waxa u baahan tahay saabuun ayaa u baahan tahay saabuuntana waa doof noocii ku yaala ayaa isticmaali kartaa muhiimadu waa inaa saabuun oo xoogaa weytin la heshaa oona jirkana nafaqo siinayso marka saabuunta midda doofta midda babaayga ka sameysan midii aad heli kartid ayaa isticmaalaysaa walaalahayga marka waxaan sameynaynaa saabuuntan doofta ayaan soo hoolayaa waxaan kusoo hoolayaa birta karootada ayaan kusoo hoolayaa walaalahayga markii aan soo hoolo ayaan isku soo noqonaynaa hadii aan dhaw waa hoola waqtiga nagu dheeraynaa videoga nagu dheeraanayo markii aan saabuuntan xabada dhan waa soo hoolaa markii aan soo hoolo ayaan isku soo noqonaynaa saabuuntii walaalahayga waan soo hoolay waa taas ma sha Allah sidaas ayay noogu soo baxday markii aan soo hoolay xabadii oo dhan hadda waan soo hoolay waxbana kama kala reebin marka sidaas ay noogu soo baxday markii aan birta karootada ku soo hoolay walaalahayga bunteeni noo holneed waxaan ku darsanaynaa qolofkii liin dhanaan iyo liin orange oo aan soo hoolay waa qolofkii hadaayata aan dhahay ma tuuraayay qolofkan waxaan ku soo hoolay birta karootada walaalahayga qolofka liin dhanaanta hadaa heli kartid
qolofta liin oranjada in qolof ay heli kartid. sidoo kale waxaan ku daray 2 xabo liin dhanaan oo aan soo miiray ayaan ku daray. liin dhanaanta qolofkeedii iyo ayadiiba waan wada isticmaalnay, waxba kama tuurin. sidoo kale waxaan ku darsanaynaa biyahan ubaxa ayaan alaabteena ku qasanaynaa. biyaha ubaxa oo rose waterkana jirka ayay u fiican yihiin walaalahayga, jirka aad iyo aad ayay ugu fiican yihiin, wayna qurxiyaan maasha Allah ayayna ka dhigaan. caagii oo dhan waa ku wada shubay, inkastoo caaga aan horay wax yar aan uga isticmaalay. haana waxaan ka soo gaday walaalahayga meelaha shoppingka ayaa lagu gadaa, waana biyaha ubaxa jirkana aad iyo aad iyo wajiga way u fiican yihiin. sidoo kale waxaan ku darsanaynaa saliida olioliifada, hal qaando ayaan ku darsanaynaa. dhowr saliidooda meeshaan ku darsanaynaa. saliidahana waxay ka caawinayaan jirka inay maasha Allah ka dhigaan oo soft ka dhigaan oo cadeeyaan oo wasaqda jirka ku jirta ay ka soo saaraan. marka hal qaando saliida ayaan ku darsanay oo olioliifa. in saliid ku taalo ayaa isticmaali kartaa, laakiin ani dhowr saliidood ayaan isku dardarayaa walaalahayga. sidoo kale waxaan ku darsanaynaa saliidan coconut oilka ayaa iyadana ku darsanaynaa ama saliid qumbaha. qayb dhan ayaan ku darsanaynaa. saliid qumbahana jirka u fiican tahay, wasaqday ka saartaa. mid qumbaha walaalahayga noocini taal midda daasada iyo midda caaga waa isku mid ku taal isticmaal. sidoo kale waxaan ku daray saliid yar oo cadeey ayaan ku daray, waa saliida caadigeeda cunada lagu karsanayo saliid cadeey ayaan ku daray oo wax yar walaalahayga. intaan ayaan hadda isku qasayaa maasha Allah tabarakallah. dhowr alaabood ayaa halkan iskugu tagtay. alaabtan ayaan si fiican iskugu qasayaa si kal iyo laabo walaalahayga. alaabtana waa alaab dabiici oo natural maasha Allah. wax adi aad samaysatay jirkaaga ku dhaq maxaa ka fiican. saaluunba ma aadaysid haddii aad sheenadan baratid. haddii aroos tahay alaabtan isku dhaq, waa alaab cajiiba oo dabiici oo kaalis kare oo jirkiina dhala ka dhigayso oo cadaynayso. saabuunta dooftana walaalahayga jirka way u fiican tahay, nafaqana way siisaa, waytina way leedahay. marka intaan ayaan isku qasaynaa oo si fiican isku dhex gelinaynaa. markii aan wax yar isku qasno waan shiidanaynaa alaabtan oo waxa ku shiidanaynaa makiinada oo wax lagu qaso insha Allah ayaan ku qasanaynaa ama makiinada keega sidii aad u taqaanid. alaabtii markii aan soo qasay walaalahayga waan qasanaynaa ama waa garaacaynaa. waxaan ku garaacaynaa makiinada keega lagu qaso. in makiinad ku taala ayaa isticmaali kartaa insha Allah. marka waan qasaynaa alaabtan waxaan rabnaa inay kareem noqoto. kareem caadi ayay noo noqonaysaa insha Allah. ilaa ay kareem ka noqoto qasitaanka ma ka joojinayno walaalahayga. si fiican ayaan u qasaynaa makiinada, marna number 1 ku qasaynaa marna number 2 insha Allah. weelkii ka soo bedelay walaalahayga, weelkii xooga cariiri nagu noqday. weelkii ay marka hore ku jirtay, marka baaquligan weyn ayaan ku soo shubanay. si fiican ayaan u qasaynaa. alaabtan waa alaab dhaaftay ka faa'iideysta walaalahayga. anigu waxaan jeclaa wax walba oo natural oo jirka lagu qurxiyo inaan ka soo dhiso insha Allah. ilaahay idinkiis naturalka wax jirka uga fiican ma lahan. intii aad jirkaaga wax kiimikaal ah marin lahayd alaabtan yartaa ku cadee maasha Allah ayay jirka alaabtan ka dhigaysaa, wayna cadeynaysaa, dhalay ka dhigaysaa. maxaa ka fiican wax adi ah hubtid oo gacantaada ku samaysatay jirkaaga ku dhaqo waa maasha Allah tabarakallah. war le ma la wadaahay asxaabay insha Allah ka faa'iideysta. alaabtan waa alaab cajiiba, waana alaab dhaaftay insha Allah. alaabteeni hadda waa u jeedin sidaas quruxda badan ayaa u qasanaynaa maasha Allah. marba markasi dambayso is soo adkaanaysa oo is soo bedelaysaa, kareem ayay soo noqonaysaa. haatan markii aan soo qasnay walaalahayga waxaan ku darsanaynaa biyaha grisiliidka ayaan ku darsanaynaa. waa biyahan grisiliidka ayagana jirka way cadeeyaan, dhalay ka dhigaan. biyahana grisiliidka lagu qastaa. marka biyahan ayaan ku darsanaynaa insha Allah. aniga wax yar ayaa igu jira, inta igu jirta ayaan ku darsanayaa. xabada dhan waa ku wada darsan kartaa, haaf buuxa haysto waa ku darsan kartaa. wax allaale wixii haysto ku darso. biyihii grisiliidka ayaan ku qasaynaa walaalahayga. mar labaad ayaa makiinadii ku celinay alaabteena. si fiican ayaan u qasaynaa si ay biyaha alaabta u dhex gasho biyaha grisiliidka. jirkana walaalahayga biyahaas maasha Allah way u fiican yihiin, way cadeeyaan. biyahana grisiliidka lagu qastaa. kareem walbo aad samaysanaysidna waa ku qasan kartaa. marka waa isku qasaynaa, si fiican ayaan isku dhex gelinaynaa. si kaliya laaba ayaan u qasaynaa, makiinada ayaan ku garaacanaynaa insha Allah. alaabteeni markii aan soo qasanay walaalahayga sidaas kareemka ah ayay noogu soo baxday maasha Allah tabarakallah. sidaas ayay alaabteeni diyaar noogu tahay walaalahayga. haatan waxaan ku shubanaynaa weel yara ayaan ku shubanaynaa. sidii midkii hore aan weel ugu shubano kale ayaa weel isku dabool alaabtan u baahan tahay in lagu shubo walaalahayga. marka waxaan soo qaatay caagan yarka ayaan soo qaatay. weel isku dabool inaa heshid masti waa weel dhala ama weel caaga, midka adi aa haysatid ku shubo. ani marka caagan ayaan ku shubanaya. alaabta wali way badan tahay, waxay noqonaysaa 3 caag. 3 weel aan ku kala shubanaya ama 3 caag sidii aad u taqaanid insha Allah. wayna iska ooleysaa alaabtan ma halaabayso walaalahayga. mar walbana meeshaas ayaa ka isticmaalaysaa. qaybta hoose fridge-ka ayaa dhiganaysaa meeshaas maasha Allah ay ku ooleysaa, mana isbedelaysa mana halaabayso. alaabteeni markii aan caagadaha kusoo shubanay walaalahayga sidaas ayay diyaar noogu tahay, iyada iyo tii hore oo markii hore aan diyaarsanay. haatan sida loo kala isticmaalayo ayaa ina tusinaya walaalahayga.
alaabtaada qaadanaysaa musqusha gelaysaa waxa soo qaadanaysaa iskaraabkii aan ka samaysanay sonkorta ayaa soo qaadanaysaa marka hore musqusha markii aad gashid korka ayaa biyo yar iskaga shubaysaa ama korka waa qoynaysaa kabacdi ayaa iskaraabkan korka marinaysaa markii aad marisid sidaas u marsanaysaa kabacdina waxaa samaynaysaa korka waa ku rugaysaa ama waa ku jijibinaysaa si fiican ayaa isku wada gaarsiinaysaa laakiin marka hore waa inaa xoogaa korka qoysaa oo biyo yar aad ku shubtaa kabacdi ayaa iskaraabkan korka marinaysaa waa ku hoolaysaa korka markii aad marisid si fiican ayaa iskugu jijibinaysaa meel walba ayaa iska gaarsiinaysaa markii aad iska gaarsiisid ayaad waxaa samaynaysaa waa ka qubaysanaysaa marka xoogaa kugu qalalo oo korkii aad ku jijibisid oo wasaqdi dhan ee kaa soo baxdo ayaad biyo yar iskaga raacinaysaa ama waa ka qubaysanaysaa si fiican ayaa ugu qubaysanaysaa laakiin alaabtan marka hore waa inaad si fiican jirka u wada gaarsiisaa oo si fiican korka u marisaa oo si fiican korka ugu masaajaysaa markaas ka qubayso markii aad ka qubaysatid waxaad samaynaysaa kii kale ayaa soo qaadanaysaa oo aan ka samaysanayna saabuunta markii aad soo qaadatid waxaad samaynaysaa waxaa soo qaadanaysaa bahalka korka lagu rugo ama haddii ay ahaato midka shabaqa oo korka lagu dhaqdo ama midka gacmaha ah ayaad soo qaadanaysaa alaabtan marka hore korkaa wada marinaysaa wada gaarsiinaysaa markii hore iskaraaba marsatay kabacdina tan ayaa marsanaysaa korka wada marinay waa wada gaarsiinay dhamaantiis jirka ayaa si fiican ugu rugaysaa kabacdina waxaa soo qaadanaysaa bahasha jirka lagu qubaysto midda oo yarta oo shabaqa ah ama midda gacmaha oo jirka lagula qubaysto oo gacmaha la gashto ama jawaan cadda yar ayaa soo goosanaysaa kabacdina jirka ku hoolaysaa si fiican ayaa alaabtan korka markaas ugu dhaqaysaa haddii ay bahasha shabaqa ah haysatid haddii aad jawaan cadda yar intaa soo goostid oo kale korka iskaga dhaqaysid midii markaas ku la isticmaal oo jirka aad ku dhaqan kartid ama aad ku hooli kartid si fiican ayaa alaabtan iskugu hoolaysaa bahashaas isla marinaysaa si kale iyo laaba wasaqda dhandho ayay kaasoo dhaysaa jirkana wuu ku cadaanaya kabacdina biyo ayaa iska raacinaysaa waa ka qubaysanaysaa ama shaambo ama saabuun wixii kaloo markaas aad korka ku dhaqanaysid sidaas ayaa bahashan walaalahiga loo isticmaalayaa markii intaa samaysid kareenkaaga soo qaadanaysaa looshinka ah jirkaaga ayaa dhuq ku siisanaysaa maasha Allah tabaarakallah hadda xabadi kaama dambayso marka alaabtan sidaas ayaa loo isticmaalayaa walaalahayga haddii aad aroos geli rabtid wiigiiba waxaa ku qubaysataa 3 maalin ama 2 maalin oo isku xigta intaa qasatid markaa halaabayso fridge-ka qaybta hoose gasho kabacdina wiigi 2 maalin 3 maalin sidii aad jaanis u haysid ku qubaysaa habeen walbo maalinka intaa guriga joogtid sidaas alaabtaasna u isticmaal insha Allah waxaan rajeynayaa inaa saaluun iyo waxyaabahaas kiimikaala uga maarmi doontid sidoo kale haddii aad tahay marwo la qabo ka faa'iideyso insha Allah waxaan rajeynayaa dhammaantiin videoga inuu anfici doono walaalahayga soo dhawaada alaabtaana korka dhalay ka dhigaysaa wayna dhaqaysaa wayna cadeynaysaa iskaraabka aan sokorta ka samaysanay iyo alaabta kale jirka dhalay ka dhigaysaa nal waxaa lagu dhahaa maxaa isticmaashay alaabtan haddii isticmaashid insha Allah videoga sii share gareeyo asxaabtiina la wadaaga janaalka haddii aad ku cusub tahayna subscribe saar